المؤمنين تاس لبقى والله لقبيا إلا الحديث الأول حديث كوبوه الرئية مروي وحا لقوري عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي أبي حفص عمر بن الخطاب والحديث الأول انت متدلق ديكتو خبرنا الله سو قدره طريقة الله بعد وحي الطهي وكان صيفي عن إن لا يراهدو روى البخاري ومسلم او مصنف كصوصار حديثك لو بالله وركا او لا روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوريان عن امير المؤمنين ترانا في عن او marka la yiraahdo الحديث الاول حديث ugu horeeya marwiyun waxa laga wariyay عن امير المؤمنين نوع مجهول ku jira majhuul kana dhaif ka loo isticmaala noocaasa marka xoogaa ku jira لكن هذا روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم كوريان عن أمير المؤمنين واتكن بتقلي مركا حوغاغاس أبي حفص أمير المؤمنين كاسو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وخيري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه إنما وحك لماهن الأعمال صحة الأعمال عمليال كان صحدودو بالنيات النيوين كي هذين وإنما وحك لماهن لكل امرئ قف والبوحة أصبنا ذيمان نواوح نيستي فمن قفك كان ضيهات هجرة هاجر الديسة إلى الله درتيس إيا ورسوله رسولك إن أقرقاره فهجرته قبك هاجرديسو إلى الله يوهانا ورسول رسول كيسا ومقبولة أي نقنه ومن كانت قبك نقطة هجرته هاجرديسو للدنيا الدنيا يصيبها أهليه أو امرأة ما إسلام ينكحها أقرسنيه فهجرته قبك هاجرديسونا إلى ما شيء أيهاتي هاجر إليه وسو هجرودي رواه حديث كاس وحوريين إمام المحدثين علماء المحدثين تلبدوا دي إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة محمد بن إسماعيل محمد كاس ابن إسماعيل إسماعيل كاس ابن إبراهيم 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 كاس ابن المغيرة المغيرة مغيرهاسو ابن بردزبه بردزبه البخاري مغالده بخارى ليرا لون نسبيي ايا وابو الحسين ايا وريين مسلم ابن الحجاج ابو الحسين مسلم كاسو ابن الحجاج حجاج حجاج كاسو ابن مسلم 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 كاسو القشيري قبيله غير قشير لون نسبيي النيسابوري مقالة النيسابورنا اللي نسبي رضي الله عنهما بخاري يا مسلم لبدا الله رالي كان نقضو في صحيحيهما لبدو ذا كتاب صحيحه كوريين اللذين لبدا صو هما لبدو ذو أصح الكتب كتبت وقو صحيح سن كتبت المصنفة الألفي حديث كوقو الرئية اوشيق كتابك كب اللوضي وحال قوري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه الساقة أبوه الرئيي مقعاس خليف كعام بحا ومقعاس الله بحيو أمير المؤمنين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ديجر أمير المؤمنين خليفة رسول الله أمبالا ديجر مركا وحو خليف النقضي markii Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu uu dhintay Abu Bakar ka dardaarmay Abu Bakarna doorashada saxaabada oo dhan macnaha bay'ada saxaabada ayuu ku sugnaatay imaamnimadiis bay'ada saxaabada bay'a la galeen sidaas ay ku sugnaatay Abu Bakar Siddiq imaamnimadiis oo khaliifkii rasuulka ku noqday markii asagu dhimanayayna wuxuu ka dardaarmay Umar ibn al-Khattab khaliifka ka dambeeyay inuu noqdo dardaaran kaas Umarna imaamkii muslimiinta ku noqdo imaamkii muslimiinta
waxa weeyaan Abu Bakar dardaarankiisu ku noqday walidaa sidaas daraadeeday waxay yiraahdaan ahlu cilmigu khilaafadii Umar ibn al-Khattab oo 10 sano iyo dhowr bilood ahayd ee dhulka ka buuxiday cadliga iyo nusrada oo muslimiinta Ilaahay ugu gargaaray waa xasanatu min xasanaat Abi Bakr as-Siddiq xasanaat Abu Bakr as-Siddiq kamid weey dhamaantii sababtoo ah waxa weyn asaga u dooray muslimiinta Umar ibn al-Khattab inuu amiir u noqdo wax alla marka wanaagii uu leeyimid asaga sabab waa ajirkeedu leeyahay ayadoo Umarna laga nuqsaamay marka waa xasana min xasanaat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu labada dariiqo ee madaxweynenimada ay ku sugnaatana waa labadaas bis ee sharciga ah in waxa weeyaan qofkan ahlul hal wal aqd ay bay'a la galaan sida Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ahlul hal wal aqdna saddex qola la yiraahdo bis waxa la yiraahdaa al ulama wa ulamada wal umara dadka ciidan kale labo oo muslimiinta ah iyo wujuhan nas dadka u hadlo qabaa'ilka u hadlo salaadiinta iyo boqorada u ah macnaha nabadoonada uma jeedo saddexdaas waxa la isku yiraahdaa ahlul hal wal aqd dadka waxna u xira waxna u fura ee taladu ay ka go'do kana furan qofka ay bay'ada la galaan yiraahdaan aba imaamka muslimiinta sidaas uu sharci ku yahay waa dariiqa sharciya waana sidii Abu Bakr as-Siddiq ay ku sugnaatay imaamnimadiisu dariiqada labaad ay ku sugnaato imaamnimaduna waxay tahay dariiqadaas oo ah in imaamkii hore markuu dhimanayo ka dardaarmo kan ka dambeeyo ayadana waa dariiqa sharciya waana dariiqadii uu ku sugnaaday Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dariiqa kale ee in loo maro imaamnimada ama madaxweynenimada ay banaantay ma jirto waa xaraan inta dulq oo kale dhamaan waa xaraan in jabhad samaysato soo abaabusho la dhacdo madaxyada isdul saarto ilaa aad ku guuleysato xaraan dimuqraadiyad inaad u marto oo doorasho loo galo oo baarlamaan loo sameeyana xaraan waa dariiq shaydaan ma ahan dariiqada Abu Bakr as-Siddiq lagu doortay Abu Bakr as-Siddiq ahlul hal wal aqd ya doorteen waa culimadii waa dadkii waxa weyn umarada ahaa waa dadka wax u dhigi jira nabadoonada ahaa dhamaanna waa dad muslimiin oo ahlu adl yahay weey dhamaan dadka la sheegay laakiin baarlamaan faasiqa iyo ragga iyo dumarka wax hatta gal iyo muslim lama kala soo xalay diin xagga noo dhiga waxa weyn dalka naga dhaxay marka diin shaqa kuma leh dariiqadaas wax shaqa diin kuma leh waxa la rabaa labadaas dariiqa imaamnimadu ku sugnaataa bis dariiqo waxa jirta haduu ku yimaado waa baadil inuu ku yimaado laakiin markuu yimid kadib aan la inkirin oo waa maxay duunta jabad iska noqdo oo hubka qaato dhinaca bad uga soo bilaabo sidoo wax u wado ama seef uu qabsado muslimna uu yahay fasaadkiisa asaga ilaahay la hortagaya laakiin mar hadduu wadankii oo dhan qabsado oo muslimna uu yahay muslimiintu waa inay bay'ada la galaan sida Abd Malik ibn Marwan oo kale si uu dagaalamay markuu dhulkii oo dhan qabsaday ayay saxaabadu bay'ada la galeen ku noolaa sida Abdullah ibn Umar dariiqadu waa xaraan laakiin maxaa la diidaya ninkii waa muslim dhulkiina waa haystaa hadii la yiraahdo asaga lagu jabadeeyay xaab bilaabana fasaadka awal oo shariicadu diidayday si socona marka fasaadka si loo joojiyo waa la iska deynaa waxa la leeyahay asaga Allahiis wuxuu soo maray hadda haduu muslimna yahay waxa weeyaan uu asagu dhulka u taliyo waxa weeyaan bay'ada la galay ana amir al-mu'minin ayaa laga wariyay Abi Hafs Abi Hafs waa kunyada libaax geesi uu ahaa sidaas loogu kunya bixiyay gabar Hafs la yiraahdo waa dhalay marka kunyada libaax la yiraahdo Abu Hafs Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arabta saddex shay isticmaalta اسم ومقع كالصومالي دون استعمالها عمر بوي مقعيس عمر بوي waxay kala isticmaalaan wax la yiraahdo kunyada Soomaalida kuma badna Abu Fulaan iyo Fulaan way kunyada Abu Hafsa la yiraahdo kunyadiis waxay kala isticmaalaan laqab waa maynaas ama koofaar waa shayga amaanta tusa ama se tusa waxa weeyaan ayda taas la yiraahdaa waxa weeyaan laqab ama koofaar ama maynaas taas la yiraahdaa
كنيديس واشيغنا وا بحفصه لقبكيس وا امير المؤمنين ويه لقبكيس ومدكاس كأمانة تصيدا قال وقل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سمعت وحن مقلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه إنما وحكل ماهن الأعمال صحة الأعمال عمليال كان صحيح دود بالنيات يوينك يا هذين حديث كان أهل علمك قبل كميط waxay yiraahdeen waa thuluthul islaam kama thuluthul ilm marka ilmigi saddex loo dhigo meel kamida weey xadiiskan marka ilmigi asaga dhan saddex loo qaybiyo meel kamida weey imaam shaafi'i ayaa asaasiyay toddobaatan baabuna galaya weey xadiiskan oo fiqi ah oo loo wada dariishana sidaas weey marka waa xadiis weyn imaam al-bukhari kitabkiisa saxiixa ah bismillaahir rahmaanir rahiim uu yiri kadib xadiiskan ku bilowday khudbo iyo xindala kale uma sameyn bismillaahir rahmaanir rahiim markuu yiri ka gadaal xadiiskan ku bilowday saarteeda ahli cilmi badan ay yiri sida Abdurrahman ibn Mahdi oo kale kitab hadan alif ilaha abwaab toodan baab kasta xadiiska waa ku bilaabay baab kastaba sababtoo ah culimadu sababka ay kutubaha ugu bilaabayaan waxay tahay amalka wuxuu ku ansaxaa waa niyo qofka marka kooba daalibka ah diin barana hadduu diintii u baranaho niyeysto inuu barto waxa Allah xarimay iyo waxa Allah xalilay si wixii Allah xalilayna oo uu xalaaleeyna uu ugu sugnaado wixii Allah xarimayna uga fogaado barashadaas uu cilmiga baranaya ibaado weyn haddii uu meeshan darsiga laga akhriyo dadkuba waa fadhiyaan iska fariiso u fadhiyana wax ajar ma marka baraarujin qofka ardayga lagu baraarujinayaaba ugu horeeyaba in xadiiska kutubta lagu bilaabo qofkii daalibka ah ee waqtigiisii soo horay ee meeshii fadhiya waxa dhacdo inuusan wax ajar ka helin hadduusan niyeysan waa xaqiiqo دنيا يستلوى عباده وعبادوينك وين ألا لوغو دوادا كاميرا انت سيختار فدي مركز سيدا سا كتب بدن لوغو بالله مركز هو حديث آبوي الإمام أحمد بن حنبل وقال أصول الإسلام ودن وصدق أصول الإسلام كودن صدق حديث باكل مده حديث كوغوه الرئي وحديث كإنما الأعمال بالنيات حديثك كان هو حديثك عائشة نص الصعودة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ففي كل صدرة أمر كيجان وأمر الدين ودين النبي محمد هيستي صلى الله عليه وسلم ففي كل صدرة وحن كمدهين فهو رد شيء قال له صدرة ومردود عن الأقبلين حديثك الله بعدنا وكاس حديثك صدحاتنا ونوي ما طور وحديثك النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات صدح راسا كل منيه أصول الإسلام ودم أما أصول العلم ودم سببت يكل منيه أما وحي تهي أرموه وحيه سيده دبا قفك لغربا وحلال أو الربا إنه حلال لماذا العقيدة يكون السبناء مركو دون السمايو أما هذا اللقوة واجبية وحرام او لا ربو قفكو حرام نمديدا انو عقيده كلا فغادو iyo wax oo mutashabiha oo la rabo qofku inuu ka joogsado inta uu kala cadaanayo arrimo waa intaas saddexda xadiiskaas cadeeyay Nu'man ibn Bashir wixii xaraam ah siday tay uga fogow wixii xalaal oo xalaalnimadoodu cadahayna wixii hadda waajibana waa ka sameyn wixii kalena markaad rabtaa sameyn wixii shaki kaaga jiro xalaalnimadooda iyo xaraamnimadoodana wataatan ba ka joogso intay ku kala cadaanay kaas cadeeyay حديث كان عمر بن الخطاب او كتابك لوغو بلاابينا هي حديث عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها من احدث في امرنا اعماشا لبا شرطيه الى marka la aqbala sharti waxa weeye mutaabaca
إن أعماشا ظاهر كيد وافقوا طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاس وحا ميزان او تصيا هدaysan waafaqin iraada kastaaba dariiqi nabiga sallallahu alayhi wasallam inaysan maqbuula ahayn marduuda tahay xadiiska Aisha tusay salaad sadaqo hajj jihad dhikri soom wuxuu rabaha haado ay ibaado aan ibaadadii nabiga waafaqin xoogaas waa xoog waxa weyn baabacay oo ka saaray waa marduud ظاهر كوا إن طريق النبي كوا فقط حديث كيس ميزان وشرط شرط قلبات مركي طريق النبي كوا فقط صلى الله عليه وسلم وح شرط كلام إن إله الدرس كات هديسن طريق النبي أتوقع كلامته إلى هذا لكن اللي درتي سيسن كاهين ومردود حديث كان تصي عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات صدق هذا حديث مركي خلاص واقوية إسلام كي أم علمي وقوي صدق راسه كل مية مركا حديث وين حافظ ابن رجب الحنبلي وحو شرحي سكو شيغاي علماء المسلمين تودد ان اسكو وافقين حديث كاسو صحيح انما الاعمال بالنيات حديث اتفاق وي مسلمين تودد علماء اسكو وافقين ايادو لوغي حديث غريب ويا حديث غريب يحيى بن سعيد الانصاري وريي محمد بن ابراهيم التيمي كلغيسو كوريي محمد بن إبراهيم علقمة بن أبي وقاص الليثي كليه كوريي علقمة وحو كوري عمر بن الخطاب بس السبب صد مدمنتاس ايو كلا وريين هادانا waxa weeye waa xadiis la isku ittifaaqay inuu saxiix yahay inma al-a'malu bin-niyyat inma wahkala maahan al-a'malu sihhatul a'mali amaliyalka ansixidoodu bin-niyyat niyooyinka yahaadeen a'maashu waxay ku ansaxdaan niyada inma al-a'malu bin-niyyat das waxa loo soo qadari culimadu marka laba qowlay kaliya qaar waxa weyn qaar ka dhahaya niyadu shardi ay u tahay a'maashu inay ansaxdo hadaan la niyeysana ma ansaxaydo waxay soo qadaraan sihhatul a'mal innamal a'malu inma sihhatul a'mali amaliyalku inay ansaxaan bin niyat niyooyinkay ku sugan oo hadaadan salaadan niyeysan ma ansaxaydo iska soo istaagtay Allahu akbar atir waxa qalbigaaga ma gelin waxba salaada ma leeyahay tukan cuntadii aad maanta iska dayday xalana ma niyeysan soon qaad waxba kuma jiraan soon ajar la waa leeyahay soon kaad marka a'maasha sihadoodu waa niyay ku ansaxda culimada dariiqadaas ay mareen gabal waana dariiqa sawaabka ah waa dariiqa sawaabka ah baad ulama waxay mareen إنما الأعمال إنما كمال الأعمال أعماش لما يسترن كذو بالنيات نيويك هذا أو كمال يسوق الدين أو قضاء أعماش إلى أنصح يضه لي الآن قبل كمية وليبة سيدا ويسدا أو كلا إيه إسكا أنصح يضه محبا نيس سيدا حنفية ضو كلا لكن قول كصواب كقول كوري أو إن لسوق الدين الصحة أو لأن عمليال كأنصح يضه نيويك حرين عمل كان لنيسن ما أنصح يضه taas marka macnaheedu wuxuu noqonaa amal kasto qofku u niyeysan inuu ilaah ugu taqarrubo ma ansaxay a'maasha marka waa labo way ma'muuraat iyo tarkiyaat a'maash ma'muuraat iyo turuuk way ma'muur shay oo lagu amray weesaqaadkii qubayskii sharciga ahaa بوريسيغي صلادي صونكي سكدي حجكي جهادكي ذكركي صدقدي وشيء مأمور أفعالها الله سميني هذا النيسن ما أنصحي تاسوا شرط قيم طلباتنا وطروق ووحيال الله يسأمرين إن لقد الشيال كتركي وحا كميت دينك إنك iska geeyo najaasta inaad iska mayrto najaasta mabta inaad ka dheerato lagu am waa turuqtay kamita najaasta inaad ka tagto waa inaad ka tagto najaasta oo ka fogaato
daynka waa inaad ka geydo marka horeba haba qaada haddaadan ka kaaftoomi karto ammaanada lagu dhiibo waa inaad celido zinada iyo beenta iyo xaaraanta waa inaad ka fogaato waxyaalaha turuugta marka niyo la'aan waa ansaxayaan iyagu laakiin ajar laga heli maalan najaasa halkan kaaga dhacday ilaahay inaad ugu dhawaato ma niyeysan biyaad ta qaadataad xoog u maridaad iska fujido mana niyeysan inaad ilaahay ugu dhawaato daahir way maradaada ajarna ka heli maydo حال أول بوالو أمر النجاسة أنا تكفوجت وأنا كفوجت خلاص أجر نمره إذا إله ما أذن عابد خلاص والنوع عاص دينا قفورها واصير إله إن يقول هو تمرتي وحنا له ملا عقله يدون لنا له ملا لكن أجر ملي أجر ملي أمانة قفوها إذا ويسكعلني أمانة دي وكاب بدن تأدونك آخرنا له ملا أجر نمره إذا أطبع الله ما عابد وإلهي نقول له ومجي تروك تواصص شيء حرامتا زينة بنتا حنتا قفك صدح كما بحكره صدح كما بحكره وحان قلبي سبق ما صادحين با قلبي سبق ما صادحين كرا ما أفرنا ولا قبل كرا قلبي سبق ما صادحين ورقي سينو زينيست قفكاسو واحد دم بيزينه بريق يا الله قبصنا ما بكو صادحين قلبي سمنا سمعين لا قبض أجرنا اللوغة قرنا هدي فقلبي بكو صادحين قفك اللبات حوغا قلبي وسواسات ها uga soo dhacay kuma fakirin mana jeclaysan mana go'aansan hooga waswaas isla markii qalbigiisana ma go'aansan oo iskaga tagay loo qaba ma wax dambiyana kuma laha ayada xadiidkeedu waa noo imaan insha Allah qofna waa go'aansaday qalbigiisay gashay xumaantii waa zinadii waa tuugadii waa beenti ilaah dartiis uga tagay إلهي أكتس أجر اللوغة قرآن نيادة ساللوغة قرآن طفك أفراد وحوي واقو آنصدي وإسكود ديي حرامتي ووسورتا قلويدي أساقو السميي وكلا اللوغة قرآن دنبي نيادة فير التعفير كده فأصنع حكوم في الحديث البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما لما قفوا مسلم هم كهديس كله ريمادان فالقاتل والمقتول في النار كل الدليل كي واحد اللي بين نارته هذا رسولك لو ويديه صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول كان واقرنا نارته وحكومه المسلم الدليل كل الدليل حكومه مين حكومه بس انه كان حريصا على قتل صاحبه نبي يري صلى الله عليه وسلم وحكومه دلاليه انه دله ولا قال هرمر نيدي حكومه marka xaraanta dad qalbiga ka go'aansato xaaw inuu qayru go'aansado kaasuu wareegay darbiga maray meel kasta hebel uu diib wax u dhiibu waay isagoo qayilaya uu qoran dambi oo qoran hada uu gooyday maana sawa la dartiis kaga matagay waxa la mid oo kale xadiidkii imaam ahmed uu wariyay thaabit nabiga sallallahu alayhi wasallam dadku waa afar qof ilaahi ilmiisi maal la waasi maalkiisa ilmigu ku maamula waa dadka kan ugu sareeyo fadliga قفنا مالا ألسي علمنا الله مصير مالك يوحو كما أموله هوديس وح الله وحي نفتيسو جعلاته كو سمينا وكو طمنا وكو دروغة كو استعمالا وح الله وحي الله لو عاصي وسوء أوضو نفتيسو ربطو كو سمينا واسكاقا عيانا مالكي وح الله وحي نفتو ربطو بس واسكاقا سمي سنة وضفك نوفا يتفسر وليد مالو هيا علمنا ما هي وقتك كل تو شرب قفك صدحات اله علم يسي لكن مال ما سي علمي سو الله وبقى وحله مال حتان لها سيده قفكاس فيعنا او سميله او علميغانا كما مولل كان مالك iyo علميغا la isku daro kan la ajribi yiri nabi sallallahu alayhi wasallam maalna ma hayado haw ma sadaqay dariiq fiican kuma bixiyo samaba haysteen علمي kaliyo haysta allana uga baqa wuxuu maal hadaan heli lahaana sida midkaas fiican u maamuli la wuxuu kaas maalka alla siiyo dariiqada xaq ku bixinayo la ajriyo nabi sallallahu alayhi wasallam
كان أفراد وامحي مالنا ما هايستو علمنا ما هايستو لكن وحو لي أطان مال هيري لها سيدا ننكاس نقول ملا سيدا ننكاس نقول ملا كاسو للدن بإجي كور هذا وحو أدونك هيانا ملك يا وحو هيانا ملك ومثل الصومالي ترى قال النعاس قال النعاس معنا وقال ولا ما جيدان قال هذا قال لماذا وايد حكم قولي لكن والنعس أو فاجر فاجر أو وحده يسوي سو ما جيد marka afartaas way taas maxay ku tusaydaa niyada qofku haduu go'aansado isagoo sameeyo lamid haduu go'aansado marka adiladaas oo dhan waxay tusaydaa marka insaas loo kala qaadin shayga oo wax way ma'muuraadka iyo turuqta saas loo kala qaadin saas loo kala qaadin inma wax kala maahan al a'malu sihhatu al a'mali amaliyalka ansixidoodu bin niyat niyooyinka ay ahaadeen وإنما وحكى معها لكل امرئ قف كستا waxa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeystay jumladan ma jumladii hore la soo celiyay ma macna cusbay leedahay ha macna cusbay leedahay ma tii hore la soo celiyay ma maxaa yeelay waxa la ogsoon yahay al-aslu fil kalam at-ta'sis hadii la isku qabto kalam ma macna cusubu faa'iideyna ma macnii hore adkayna waxay qaacidadu tahay al-aslu fil kalam at-ta'sis ta'sis waxa la macnaha cusub kelimadu inay macnihi hore ay si adkaydo iyo inay macna cusub faa'iideydo asal arabiga waxa waa macnaha cusub asal waa marka waxa leedahay al-aslu fil kalam at-ta'sis macna cusub asal waa macna cusub ay marka faa'iideeyeen macna cusub wuxuu yahay marka ugu horeyda waxa la soo yiri innamal a'malu binniyat amaliyalka sihadoodu niyada ku xiran oo qofkan ibaadada markuu sameeyay mesela salaadu tukana wa inuu niyaysto inuu tukana ko allana uu tukana dartiis waa laba shay mid wuxuu yahay waa amalka uu qasdiyo salaad uu qasdi waa amalkii midna ومعمول له بي إذا الله سمينا عمل معمول له لبداس لازم إن لو قصد العمل والمعمول له عمل كي قف وين قصد إنه تكده هذانا إذا عمل فلا يرى وإنه نيسته مركا عمل كوه كو أنسي كرا إناد نيسته مثلا واتكن الظهر وإناد نيسته إناد إلهي أتكيده كو طلبات وإنما لكل امرئ ما نوى وتعيين المنوي شيء قال لن يساء وإلا عينه ومثلا ظهر يعصر وأفرق يأفرق هكذا صار نيتك صار بس واستكتأفرق عاتك تمدد لها مثلا ظهر يعصر على كاتب وكهرد لبدودي وافرفر عصمه او عشيه waxa weyn ama waa halmaan aw عشيه talabadii baa inaad qalay waa istaagti labadoodi taad niyeysataa leed ayadoo sawaabkuna yahay duurka inaad hormaridaa la rabaa sida fiican laakiin midad niyeysato markaad istaagto niyeysato hadaa duur qalbiga gelido duurada wayna maaliku limriin maana wa illa wa'ayntay هذا تيستك عصرك قلبك قليدود نيساتنا عصر الله وإنما لكل امرئ ما نوى وتعيين المنوي مثلا وتصوي سقطت مساجد كان واسوقش صلاه الصبح نوال لأدم صبح صلاه ضادت مد رفتو ككرتي سوما قفدو ويسقط لبا ركعه سنها لغا ربا وصم مساجد دي اللي سو غلانا لبا ركعه لا اسكر واتحيت مسجد صلاه الصبح دي اللي ادم ادن كدنبنا لبا ركعه لا اسكر ربا او ركعه الفجر مساجد سو غشي واستاغت لبا ركعه نيست وحد لها واحد نيست وانما لكل امرئ ما نوى
haddaad u niyeysato laba ragco oo ragcatay wudu'a weysaqaadka labadii ka dambeeyay labadaas leedahay labadii subaxna maadan tukan maadan tukan taxiyat masjidkiina waa ka dhaca maxay awalba laba ragca la iska rib taxiyat masjidkiina waa ka dhaca haddaad tukato labadii oo taxiyat masjidka ahaa taxiyat masjid aad leedahay ragcatay wudu'na maadan tukan ragcatay fajrina maadan tukan بعد ركعتي الفجر تكتو ركعتي الفجر نوات تكتل لبدي او تحيت مسجد ما كان اول بس صلاه الاسكربي سويت على كل حال واحد يسطل صدح صلاه marka waa in maal kulli imrin ma nawa macnaheedu waxa weyn ta'yin almanwi shayga la niyeysana waa inaad cayinto walidaa saadreedeeda waxa rabtaa duur inaad tukato rabtaa قد سو استاغتو إنا تكيدو الله را تكيدو دورنا تكيدو صدحاس قلبي ويني غلا صدحاس ويني قلبي غلا واتكني الله را تكني دورنا وي واحد تكني ولازم قلبي غلا دي قال حديث قول كلا جيرو بعض اهل العلم مرينو واجبك وقت كان لا يقول هايان تكاد قفو قلبي سغلي وا كدعي دهيره واجبك وقت كان لا يقول الا وقتكاس وقت واجبك لو يقولها وحو الظهر الوقت ظهر اول بعض الثيمين ولبا تاسو رجع اصل لكن العلم بدنا waxay leeyahay ظهر وين قلبك قليلا على كل حال وحوي النيداس وانما لكل امرئ معناه وان عينت النيه tan horena waa maxay qofku wuxuu niyeystay waxaad niyeysatay مثلا maanta inaad soonto soonaad leedahay waxaad niyeysatay calooshu si ay u faaruq noqoto maanta cuntada in iska deeyo gaajaad leedahay soon milis waxaad niyeysatay leedahay in mid hore waxay ahayd amalkan cidda loola qasdayo macmuul lahu ahadka loo sameeyna amalkan cidda loo sameeyna iyo amalkii la niyeysanay laftirkiisa tan dambeena waa inaad cayinto amalka waa inaad cayinto marka labadaasuba waa laga marmaa niyada marka laba macno ay leedahay luqada macnaha niyadu waa qasad niyo waxa la yiraahdaa qasad in shay qofku u qasdo shar'an waxa loola jeedaa qasdu fi'l al-ibadat taqarruban ila Allah qofku inuu qasto cibaadada in uu sameeyo alle isagoo u dhawaana niyadu waa sax qofku cibaadadan inuu la qasto inuu sameeyo asagoo Allah u dhawaana sadarteeda waxa la yiraahdaa niyada waxay u sugnaatay tamyiizul ibadat an al aadat tamyiizul ibadat ibadatka inay ka socto an al aadat aadooyinka oo mesela qofa kululaaday maanta suuqu ka yimid biyo isku daadiyay inuu qaboobo raba qofna janaabu qaba inuu ilaahay caabudu go'aansado qubaysto labadooduba waa qubaysteen Soomaa qofna allu caabudo ajaru leey qofna wax ajara male dambina male la waa qabowsaday yaa kala saaray midna waa cibaado midna waa caado midna waa cibaado midna waa caado labadoodan biyo isku daadiyay waxa kala saaray waa niyad marka tamyiizul ibadat an al aadat wasas qofkii dhaqtara yiri maalintii waxa cunay mesela ama asaga sidii fuudaati maalintii wax cunay habeenkii iska casheeyay maalinkii oo dhan afku ka deys qofkaana wuxuu siri maanta ilaahay ku caabudo son labadooduba wax ma cunin wax kale ku kala duwan yihiin lama waxay ku kala duwan yihiin niyada midna waa cibaado midna waa caado marka niyada waxay u sugnaatay tamyiizul ibadat an al aadat an al aadat taas waa mid tan kale niyadu waxay u sugnaatay tamyiizul ibadat ba'daha an ba'd ibadat laftigooda in lagu kala saaro oo mesela adiga maalin aan ramadaan ahayn aad rabtaa inaad soonto laga rabo mesela maanta waa isniin soon qadaaha lagu leeyahay mid kafaarana waa lagu leeyahay saddexdooda mid aad niyeysan dad kafaaradii niyeysato hadee qadii waa lagu leeyahay kaama dhicin labadoodu waa soon iyo soon
waxa kala saara oo kale waa niyad isniin iska soo sunnah hadaad niyeysatana kii sunnada had leedahay ee waajibkii kaama dhicin marka labada cibaadana waxa kala saara waa niyad duur iyo casr maxaa kala saara niyada isku qaada loo sameeyna marka tamyiizul cibaadaat ba'dha an ba'd qasas xaga macnaha niyada laba macno ayay culimadu uga hadlaan qolo waxay uga hadlaan midaas aan soo sheegno qasadka inuu qofkan amalkan u qasdo maanta inuu salaad tukado macnaas aad looga hadlaa macnana waxa weeyaan ikhlaas amalkan yaan cid aad u sameeyay alla kaliya noqoto yeesan cid kale soo geli labadaas macno waa muhiim horana waa u soo sheegay quraanku marka iyo sunnada in badan niyada معاني بدن oo kale ka cabiraan mar ikhlaas ay ka cabiraan ikhlaas ay ka cabiraan ala lillahi dinul khalis marna waxay ka cabiraan iraada minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir iraada qof aakhirad doonaya qof adduunya doonaya iraada waxa kale oo ka cabira quraanku ibtiqa sida إلهي قول كيسو قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء والنيو إلهي وجه يسودونا والنيو ابتغاء قاس آبو قرآن كأبو بدين إرادتنا ويكون بضان ابتغاء قال هذا كمل حديث في بخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتقي بها وجه الله adiga bixin maydin hanti ama sadaqo aad ilaahi wajigiisa ku dalbaydo waa ikhlaas niyadi weey illa usiba عليها walaga ajar siina illa usibta عليها walaga ajar siina hatta luqmata taj'alha fi imra'atika hatta bilka aad zawjadaada siinaydo walaga ajar siina hadaad ilaahi u niyeysato bal wax ilaahi lagu caabudo sadaqa لما أجر بدن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيل كان سينيدو زوجته يدد كان بيل كود كو واجبي iyo shilinka jihadka lagu baxsho labadaas uu ajar badan laakiin waa goorma waa marka niyeysato hadaadan niyeysano biilka iska dhiibto tira biil waa la isku leeyahay hal shilin ajar mali waajibkiina waa ka dhac خلاص biilkaas in aakhiro lagu cadaaba ka badbaadi laakiin ajar mali hadaad niyeysatana sadaqa la bixiyo tan ugu ajar badan ka war ibliisku marka imisu ka hor taagan yahay matagan wuxuu rabaa bil walba marka bixido kadib inaad ku baraarto oo bishan ma niyeysani ka war bisha soo socotay noot asna wuxuu leeyahay waa noot dad niyeysato noot way isku taagantii waxa la rabaa inaad ka adkaato oo gacantaada iyo qalbigaaga isbarto shilin inaadan bixin la miskiin nasiin wala waalid nasiin wala walaal nasiin illa inaad niyeysato maani bar gacantaada iyo qalbigaaga isla shaqeey illa waa isku dhaafintii adowgan waa inay ka go'daa inaad barato gacantu haday dhaqaaqdo qalbigu inuu dhaqaaqo oo niyeysato intaan gacantaada maal ka bixin gacantaada ka bixin laga yeelay aduu ma lihid waa inuu gacantaada uusan ka bixin waana shayga ugu qatarsan niyadu waxay dhigi jireen aymadii salafka sida Sufyaan ath-Thawri ma aalajtu shay'an ashadda calaya min niyyati waligay ma aanan ku dadaalno ma farsamayn wax niyad iiga dhib badan qofku amalka daahir inuu sameeyo waa fudud laakiin inuu baraxtiro ikhlaas inuu san halmaamin cibaadaadkiisu markasta alla dartiis uu ka dhigo waa shay culus qof ilaahay u fududeeyo umay u fududa qof ilaahay u fududeeyo ayay u fudud niyada meesha laga niyeystaa waa qalbiga niyo meesha laga niyeystaa waa qalbiga arabka wax laga niyeysto arabka waxba laga niyeysto dhamaan waxay isla gooliinaa cilmigu qofka hadduu afka wax ka akhriyo mesela salaadii tukana nawaytu usalli farda salati dhuhr 4 rak'at adaan mustaqbil al-qibla imaman aw ma'muman Allahu akbar qalbigana kama niyeysan culimadu isla gashay niyada shartina inaysan qofka salaadu ka ansaxin sama niyeysan laakiin waxa la isla ogol yahay qalbiga hadduu ka niyeysto oo uu ka niyeysto inuu ilaah duhur u tukado mesela arabkana waxba uusan ka aqrin salaadiisu waa saxiix kaliya
متأخرين waxay isku khilaafsan yihiin culimadii hore salafka maya mutaakhiriinta fuqahadooda gabal waxay leeyihiin waa fiican tahay in la yiraahdo nawaytu wala dhika markaas waxay yiraahdaan kutub ku qoraan wa talafudu biha sunna baba sunnatul ulama ila jeedan sunnatul nabiy ila jeedan la wa ittifaq ina nabigu dhihina lagu dhawaaq sunnatul ulama wa fiican tahay lagu dhawaaq waxayna yiraahdeen waxaan saas u yeelaynaa ليساعد اللسان القلب وحربنا حوغا نيدي ضعيفتي ليساعد اللسان ان عرب كتاغيرو القلب اساسا ربنا يراد او قف كان markuu qayliyo qalbigiisa ay ku soo dhaco inta san ka rabnay بعض علماء متأخرين waxay yiraahdeen wa tarafudu biha bid'ah in lagu dhawaaqa bid'awi mar'an in lagu dhawaaqo inay culimadu labadaas ku khilaafeen xaafid ibn rajab soo naqlin labadaas mutaakhiriin ساسو سو نقلنا كتبها اساس يكون منصوصه ان قارنا يراهدين والتلفظ بها بدعه قارنا يراهدين والتلفظ بها سنه يا حاكم هلكال هذا في شيء لا سوق خلاف فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الى وحوليه شيء حتى اد كدودان اله يا رسولك سو عليه الله عليه كتابك وعليه قرانك نبيك وعليه معنيد waxa حديثك النبي وعليه صلى الله عليه وسلم واساس الى وحده سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله واحد اسكو قبطان او شيء بقى حكمكيس الله اسكله الله وداي دينته وعليه halkaas marka waxa ku cadaatay mas'alaha hadii la isku khilaafo ma banaana adigu mid inaad iska jeclaato iska raacdo ee waajib waxa kugu ah in kitaabkii sunnada lagu miisaamo kitaabkii sunnada marka lagu miisaamo hal hadith sahih ahaado dhaif ahaado laga soo heli ma oo nabigu hal maalin yiri nawayt usalli ama salaad ama soon midna laga soo heli ma taas way lagu gaar hal hadith walaw dhaif ahaado durab ya israadas waa muhiim talabaad saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ardadiisa ahayd ee diinta ka soo xambaartay qowl waahid laga soo heli ma hal qof oo saxaabada kamid ah oo yiri nawayt usalli intaas markaad ogaato al-imam al-hafid ibn kathir tafsiirka quraanka kariimka wuxuu ku yiri qaacidaad qiimo badan ayuu ku sheegay oo wuxuu yiri amma ahlu sunnati wal jamaa fayaqulun ahlu sunna wal jamaa waxay yiraahdaan kullu fi'lin wa qawlin lam yathbut 'an as-sahaba qawl kasta iyo fi'il kasta oo saxaabada ka sugnaan bid'atu wa bid'ah li'annahu law kana khayran la sabaquna ilayhi hadduu qayr ahaalaha saxaabada nooga hormari lahayd saasi ahlu sunna wal jamaa yiraahdo saas suratul ahqaf kulay tafsiirkeed soomaalian garan imam shafi'ina kalimad weyn oo qaaliya laga hayo imam shafi'i maxay tahay kalimadaasu wuxuu yiri natabi'u sunnata fi'lan aw tark sunnada nabigan raacayna sallallahu alayhi wasallam fi'lahan wuxuu sameeyaan sameeynayna tarki ahaana wuxuu ka tagayna waa ka tagayna wixii nabigu sameeyay waa sameeynayna wixii nabigu ka tagayna waa ka tagayna sidaas imam shafi'i waa kalimad aad u qaali xaafid ibn hajar fath al-bariga hadalkaas uu sheegay in imam shafi'i siyaasi haday sidaas marka tahay waxa xaqiiqadu tahay in lagu dhawaaqo niyada ama salaad ha ahaato ama soon ha ahaato qowlka sawaabka wuxuu yahay inay bidcad qowlkaas qowlka sawaabka waliba xaafid ibn rajab al-hanbali wuxuu yiri sidaan fiiri wala na'lamu fi hadhihi al-masaa'il naqlan khasan 'an salaf masaa'ishaas oo niyada korma looga dhawaaq karaa iska daas nabiga iyo saxaabada salaf saalix oo dhan saddexdii qarni ee nabigu uga marqaati kacay khayriyada salawaatu illaahi wasalaamu calayhi wax khaas oo laga soo naqliyay ma ogin
ائمدينا wax laga soo naqliyo lama hayo la imam malik wala shafi'i wala ahmad wala abu hanifa hal kalimad oo ah nawaytu usalli hal yira hal yira laga soo naqli qara waxay yiraahdeen waxaan uga qiyaasanaynaa xajka iyo umrada oo xajka iyo umrada waxa nabiga ka sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam xajka iyo umrada markuu bilaabayo inuu dhigi jiray labayka umratan wa hajj mesela ilaahay wa hajj iyo umran kugu ajiibay waa kaas ku dhawaaqay yiraahdeen annaguna salaadii soonkan ku dhawaaqay laba jawaabood oo fudud lagaga jawaabo ama saddex tan ugu horeyda waxay tahay nabiga waxa uu ku dhawaaqay niyada ما به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أريد الحج والعمرة ما أما سنويت الحج والعمرة ما نيدي كما دواقي إيك لفظك وكو دواقي وحي لمدتها تكبيرة الإحرام صلاة مركة اللي قال محل هذا الله أكبر صمع سيدا صلوك على صلاة حجك يا عمرة أنا سيدا صلوك على لبيك حج لبيك عمرة لبيك حج وعمرة سيصلوك على marka waa mid oo takbiirada waana sharci leeyahay niyada ma Allahu akbar tii lamid salaad lagu galay jawaabta ugu sawaabsan waa taas jawaabta ugu sawaabsan waa sida walidaa satradeed fuqahada yiraahdeen salaada marka la niyeysanayna weytu la leeyahay xajkana waxay yiraahdeen waxa la leeyahay Allahumma inni uriidu al-hajj wal umrah oo niyada waa ku dhawaaqay yiraahdeen tii nabigu ku dhawaaqay ma dhihin taas niyo ku dhawaaqida taas niyo ku dhawaaqid ma aha marka jawaabta sawaabka waxay tahay waxa nabigu ku dhawaaqay niyadi ma ahayn ee sida takbiirul ihraamka loogu galo salaada lafdigaana xajkii umrada lagu galo sidaas weeyaan midda jawaabta ugu dambeeyana waxay tahay fardan wa taqdiiran hadii nabigu ku dhawaaqay la kuma dhawaaqin xajka iyo umradeeda qiyaas ma galo cibaadad baab cibaadad qiyaas ma galo salaada nabigu miyuu ku dhawaaqay maya ha ku dhawaaqay haday dhig ee xajka inuu ku dhawaaqo waa ku dhawaaqay لكن على كل حال حاجنا كما دواقين ولجس نيه نبي كما دواقين او ما دهنا ويتو كذا وكذا سببتو عند اديغا عابديدود عبادته او سمينيدا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وحلاته ku jiro og adiga ma dadka ogeysina mas'alaha alla qalbiga waa ogi waxa ku jiro cidaadu tukaydo iyo waxa tukaydo alla waa ogi dadka niyada ogeysina marka xal la dhawaaq Sheikh Muhammad Salih Uthaymin oo sheegay laba nin oo xaramka isku arkeen mid marka xaramka ku tukana markaas wuxuu yiri nawaytu usalli فرض صلاتي خلف الامام الحرم ساسو kala ku markuu allah akbar leeyahay yiri warjooj waxaad halmaantay taariikhdi ma sheegin taariikhdi maalin hebla sanadka hebla taariikhda dal yiri hal joojin ila salaada maanta tukada mid bari tukay isku taariikh ma soo ma kuda had wakala tagi bay ceelasho kala ku tukay wanaad sheegtay ceelasho inaad ku tukay hadaad hargeysa ku tukay hargeysa sheeg dad kismay ku tukay kismay ku dar illa wixii yaa hadaad tiraado ku dari maaha waxa lagu leeyahay xad ku kala farqid sheeg waxa ku kala farqid xad ku kala farqid sheeg illa xaramka salaada lagu tukay islaama ajar eka iyo mid lagu tukana muqdisho islaama ajar soma sheeg marka mid tukay ta sheekaynay dii kale sidii nabigu tukay jiray uu tuko salaada waxa lagu galaa sida uu taaganta inaad tira Allahu akbar خلاص sidaas lagu galaa tahriimuha takbir uu nabigu sallallahu alayhi qofka waa iska sheekaysan ka garaakoh waxa ka xarimaya sheekadii iyo waxyaali awal xalaasha u ahayo kale markuu Allahu akbar yiraahdo wa tahliluha tasliim waxana waxa xalaalayna assalaamu alaykum markuu yiraahdo marka uu nawaytu salli daldala waa iska sheekaysan kara hebelo waxa si wada dhig kara si wada kara hayla sheeko waro على كل حال إلهي لوغا عبصده او waxaas la iska daayo wuxuu yiri xaafid ibn rajab al-hanbali waxa kan saxay abdullah ibn umar ibn al-khattab inuu maqlay nin oo ihraamka fiiri hajka iyo umrada bahaya allahumma inni uriidu al-hajj wal-umra maqlay umar ibn al-khattab waxa raba abdullah ibn umar ibn al-khattab maqlay abdullah ibn umar ibn al-khattab ayaa maqlay nin bahaya allahumma inni uriidu al-hajj wal-umra فقال أتعلم الناس وحير ما ضدك شيغيده ضدك ميد شيغي الله يعلم ما في نفسك وقال له اوغي وحا قلبك كجير اي ما ضدك شيكاين سمجي الله اوغي هي ما ضدك شيكاين تاسوي سدا سوي
marka arintaas qofku waynu iska ilaaliyaa Abu Daawud wuxuu yiri Ahmad ibn Hanbal ayaan ku yiri ataqulu qabla takbir salaada marka tukaydo Allah akbar ka hor wax ma dhahe qaal Ahmad wuxuu yiri la maya ibn Rajab ku sheegay jaamic ulama xikam ala kulli hal niyadu wa qalbiga waxa weeyaan afka shaqa kuma laha nabiguna ma dhihi jirin marka qofku waynu iska ilaaliyo inuu yiraahdo waqt faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi faman qafki kanat ayatu hijratu hajridisu ila Allah intikaya wa rasuli rasulkiisa fa hijratu hijradisu ila Allah intikaya wa rasuli waxa la og yahay luqada carabiga sida muqarrarka ku ah ibn daqiq al-idna sharaxa uu kitabkan ku leeyahay uu ku baraarujiyay ficlu shardiga iyo jawaab shardiga waa in la kala duwaa oo iskhilaaf sanaadaan mubtadaha iyo qabarkana waa in la kala duwaa iskhilaaf sanaadaan hada ficlu shardiga iyo jawaab shardiga isku mid ah laga dhigay faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi mar haday sidaas noqotay waxa laazim ah in la soo qadaro wax lagu kala saaro tamyiz la soo qadara faman kana qofkay noqoto hijratu hajridiisa niyatan wa qasdan xagga niyya ahaan iyo qasad ahaan qofkay niyadiisu tahay ila Allah wa rasulihi ilaahay dartiis oo ilaahay inuu ku raali galiyo alla raali uga noqdo iyo inuu inta hijroodo rasuulka u tago sallallahu alayhi wasallam uu nabiga diinta ka barto oo nabiga u gargaaro fa hijratu hajridiis ila Allah wa ahaane iyo rasuulihi oo waxa lagu abaal marina alla dartiis qof u hijrooday nabigana u gargaaray sallallahu alayhi wasallam shar'an wa hukman marka saasa loo kala duuyo faman kana hijratu ila Allah wa rasuulihi niyatan wa qasdan niyahan ya qasadahan qofka hijradiisu ahayd alla dartiis u hijro nabi Muhammad Madiina ugu tag sallallahu alayhi wasallam ilaa waxa laga soo hijroo jiray meesha la yiraahdo Makka waxa loo hijroo jiray Madiina nabigu joogay sallallahu alayhi iyo inuu nabiga u tago oo diinta ka barto oo nabiga u gargaaro sallallahu alayhi wasallam qofkii sidaas hijradiisu tahay fa hijratu hajridiisu ila Allah wa ahaanihi wa rasuulihi shar'an wa hukman hukunahan iyo shar'i ahaan wuxuu abaal marin u leeyahay waxa weeyaan qof alla dartiis u soo hijrooday intaas ka gabaal markii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam qaa'idad gudniyadii naga siiyay oo ah amal wuxuu ku ansaxaniyo qof walbaana wuxuu leeyahay wuxuu niyeeyay markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qaa'idad taas naga siiyay wuxuu hadeerna nabigu noo miisaalina tusaale amal a'maasha saalixada kamid hal amal alla ugu miisaalina waxay macnaheedu ka dhigan tahay dhammaan a'maasha kale tan wasaas hijradii nabigu soo qaatay sallallahu alayhi wasallam hijra waxa la yiraahdaa luqahan waa tarki ka tagid weey sharci ahaana waxa la yiraahdaa al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam inuu qofku ka soo guuro buldaanta gaalada una soo aado magaalooyinka muslimiinta al-intiqal min balad ash-shirk balad gaalo inuu ka soo tago ee uu soo aado ila balad al-islam saasa la yiraahdaa sharci ahaan saasa la yiraahdaa sharci ahaanna labay u qaybsantaa waa sunno iyo waajib qofka hadii laba shardi laga helo waajib ay ku tahay hijradu labada shardi maxay yihiin balad gaalu joogaa si khiyaaran alla uma caabudi karo si khiyaar alla uma caabudi karo cibaadada laga rabana waxa kamid ah carruurtada in diinta ku tarbiyeeyo siday tahay aad ugu tarbiyeeyo laakiin ma awoodid iska daa inaad awoodee waxa weeye inaad ka bari noqoto carruurta isku day nin akhyaaro hadda gaalada ka soo laabtay iga sheekayna maan loo jazaahu allah khayr gabadhan dalayo xijaabana la arkayo ka war waa gabadhu dalayo xijaabana ugu gaalada ii yeereen wariyaa gabadha maadaha ku qasbay xijaab markaasaan maya maya horay u tay diinteeda horay u taanu shaqo kumeli ma shaqo kulay shaqa ma kulay misoo mala waajib ayni yahay ku inuu amray xijaabka Soomaa oo ku qasbaday diinta xad saga wali u ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waajib soo ma jeed bari aan ka ahaanay shaqa ismali soo ma jeed
gabadhana uu sheegay waxaan idin waa kala bari noqonayna meeshan la isku qatar ma qofkaas ma khiyaar u leeyahay waa reer yurub wuxuu joogaa waana hadeere ma khiyaar diireeda yaal halkaas qof kasta oo diintiisa khiyaar u lahayn waa shart oo siduu rabo alla uma caabudi karo waana awoodaa inuu wadankan gaalada ka tago wadan muslim tago haduu san awoodin oo meel uu tan kale la arag kuma jiro labada shardi hadii la helo ijmaac waxa ah xaraan inay tahay meesha jooga waajibna ay ku tahay inuu ka tago meesha oo balad muslim tago dii labada shardi la helo waa awooda inuu tago meeshina toos alla ugu caabudi karo sida hadda gaalada reer Yurub ay yihiin oo kale iyo Mareykanka waajib waxa ku ay ka hijoodo ma ahan subaxdii gabadh caruurtayda u dhiibaya 10 sano jirta habar kaafirada oo gaalnimo 60 sano ku gaartay kasan casirkii ka sugaya hadana saas yeelina suurtagal ma aha taas waa dalaal ilaahay hortiisa aad ku ceeboobayda mas'uuliyadii aad dayacay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati aw mas'uuliyadii alla ku raaciy alla ku raaciy waana lagu weydiin nabi maxamed ayiri sallallahu alayhi wasallam hayta mas'uul kabay caruur ya مسؤول كبير وامحي نبي محمد يري صلى الله عليه وسلم والرجل راعي في أهل بيتي من كوال الراعيين قيس كيس عرورتيسا زوجتيسا ومسؤول عن رعيتي إلهي هورتيسا ولا ودي دونا وهي الراعية مركا لبدا شرطي له هو إجماع حافظ ابن كثير إجماع أسوق كسرنا تفسير إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم آيات سورة النساء آيات شرحيده ku soo raraa ijmaac inay tahay xaraan inay tahay jooga marka hijradaas waa waajib haduu khiyaar leeyahay oo sidoo doono ilaahay u caabudi karo soona tagi karo waa sunno inuu soo taga mar walba calaamadu bari aan ka ahayo qof wadan gaala dhex degan gaala qof dhex degan bari aan ka ahayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddana waxa la rabaa bil aksi laga dhigo oo dadka gaalada u galaya Talyaaniga ka degaya la yiraahdo muhaajiriin ka soo cararay Afrika كي هجرودي من بلدان الإسلام إلى بلدان الكفار نعوذ بالله منها إنا لله وإنا إليه راجعون مركا هجر واساس عمل كاسو نبيكو كم مثالي هجر دعا قفك ودن قال وقصو تغا ألا درتيس دينتي سينا يبدبادو قفك كاسو وحويان وحوليه هاي أجن أو هجرو قفك وصو تغا النبي محمد أدو تكتدو وقرقارتدو ومال نبي مركو نولا داتريسا markaas loo tagi karo hada waxa uu jiro karta meel sunnada nabiga ka nooshay sunnada nabiga wax ka noolay laakiin daatadiisa may laakiin ka waran dawladda la dhisay la yirisu Yurub u joogo inta ku qawaafay yiri baarlamaanka xilin ka qalqalsan markaas uu muqshay hijra malay maya hijra male hijra male marka qaa'idadaas nabigu baxsho uu leeyahay faman kaanat hijratu hijradiisu qofkay noqoto إلى الله ورسوله إلهي إيه رسولكيس فهجرته هاجرتيس إلى الله ورسوله أهنا أو وحولي يقف ألا درتيس سوى هجرودي نبقى وقرقار ومن كانت هجرته هجرتيس وقف كي نقطة للدنيا الدنيا وقنع صدق وانحلالضان وحسلية تكسوا بوسات المقالة مهاجر معها للدنيا الدنيا يصيبها وهلا يوسوتغي كرسي رادي سويه وغوردون وغنعسدون او امراه ما اسلام ينكحها وغورسنا فهجرته هجرته الى ما هاجر الى وحو سو جود لما دهين فهجرته للدنيا او امراه لما دهين maxaa loo dhigi way ee danaha adduunyo loo soo hijroona lama tiri karo qof ganacsi soo hijroona qof guur soo hijroona mida baarlamaan soo hijroona waxaas waxay leeyihiin waxay soo hijroodeen ilaada ma lama tiri karo waxa nabigu ku soo koobay hadalkan kalimadan jaamacada qof walba uu soo tagulay ki baarlamaan iyo balaayo uu soo tagay dambi uu basiiray ki ganacsi uu soo tagay waa taajir ki gabar guurkeed doonay waa khaatib naga doon haba kala ta uu leeyahay mar mid walba uu soo tagay uu leeyahay والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد فعنقص وجهنا كتابك الأربعون النووية حديث كوار يا أيام كدحجرني صدح كلمان إن شاء الله وقول الله بنينا تنكبات واحد طهي waxaan soo ogaanay acmaasha sixadoodu waa niyada qofka amalkiisu wuxuu saxiix noqon karaa markuu amalka niyeysto Allahna uu kali yeelo oo uusan cid kale u niyeysan oo uusan cid kale dan uga lahayn oo uusan cid kale wax uga doonayn Allah kaliya uu wax uga doonayo taas waxa ka soo horjeeda waxa la yiraahdaa riyaa iyo istususka ikhlaaska waxa ka soo horjeeda riyaaga ama istususka ama ismaqashinta taas ka soo horjeeda marka amalka markuu ikhlaas waayo riyaaga noqona aqsaam weey kan ugu horeeya waxay tahay amalka dhanba qofku inuu u sameeyo liqaradin dunyawiin dan adduun oo kaliya أوصن وحكة لكلاهين أوصن وحكة لكلاهين سيدا منافقين توكله سيدا منافقين توكله إلهي قتل مامي سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مركي صلاة دو استاغان منافقين تا waxay istaagaan ayagoo wehsanayo culays ay ku tahay salaadu oo dadka istusaya waana sida gaalada asalkaana lagu yaqaan oo acmaashooda markay sameeyaan istususay u sameeyaan illa ilaahi subhanahu wa ta'ala ayagu ma rumaysneen sida Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri muuminiinta asagoo uga digaya inay gaalada kala mid noqdaan dhankaas iyo dhan kale xumaana dhamaantiisba wala takunu kalladina kharaju min diyarihim batara wa ri'a an-nas halamid noqonina sida kuwii soo baxay oo guriyoodii ka soo baxay kibir iyo dadka inay istusaan daradeed kibir iyo dadka inay istusaan dagaardeed dagaalkii badar laga hadlay kufaartii ka soo baxday Makka oo yiraahdeen ma safarkeenniyuba haweysto damac ka galay Maxamed maanta waa in la arkaa Carabu aragtaa waxa aan dhigno sidaas oo kale han noqonina sida marka al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali wuxuu yiri khiyaaga noocaasa oo ah qofkaanu inuu u tukado dadku ha ku arkeen oo kaliya oo u jihaado dadku ha ku arkeen oo kaliya oo u soomo dadku ha ku arkeen oo kaliya riyaaga noocaasa waliba salaada iyo soonka ma dhici karto inuu ka soo fulo qof muslim ah ma dhici karto qofkan maba tukanaysi kaliya wuxuu tukana dadku ha ku arkeen ma dhici karto inuu qofkaas muslim yahay ma suurtagal ma aha inuu amalka burinayana wax shakiya ma leh dawaabatii munaafiqiin marka kaas waa sifadii munaafiqiin marmar way dhici kartaa uu yiri acmaasha gabal qofkii oo muumin ah inay ka soo fusho riyaagaas waa dhici kartaa oo uu amalkaas ka fasahaado sida wuxuu ku miisaaliyay xajka oo kale iyo sadaqada oo kale qof sadaqa bixina xooga istususa inay gasho waa dhacdo isagoo muslimoon gaal ahayn amalkaas ka buraya marka laakiin salaadiiba inuu u tukado dadku ha ku arkeen inuu tukado oo uu soomo dadku ha ku arkeen inaad soomto muslimna uu yahay wax dhici kara ma taas waa mid waaba amalka asalkiisa inuu u sameeyo dadku ha ku arkeen tan labaad wuxuu yahay amalka asalkiisaba ilaah inuu ku caabudana waa rabaa dadku inay arkaana waa rabaa tii hore waxay ahayd aslul amal ba dadku u sameeyna ee ilaah ugama rabo raalli ahaansho iyo jannah kan labaad waxay tahay aslul amal Allah u sameeyna dadkana inay arkaan waa u sameeyna labadoodu isku daran waa shirkiga mid la yiraahdo taasna ayadana nusuusta daahir ayay ku tahay saxiixna waa tahay nusuusta ku soo aroortay amalkaas inuu buray waxaana daliil waa xadiidka sahih muslim ka min xadiis abi hurayra
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى الله وحليه أنا أغنى الشركاء عن الشرك انت وحوداكته كانوا قد ديقتونا شبضنا وعن كد ديقتونا هاي وذاك إنا عيد كلي عيد وحلو قدنا عيد باهن وفقير من عمل عملا أشرك فيه معي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري قفك عمل سمية وعمل كاس وسميين إلى وداجي قفك لو أنيق غير كيئة تركته وشركه عمل كاس يوداجي سبوا كتك ساسو الله رب العالمين حديث صحيح المسلم مركا hadduu amalka asalkiisa Allah iyo qeyrkiisa iskugu daro oo Allahna ku aadi isleeyahay dad kalena wax uga rabo waa baadil amalkaas waa baadil amalka kale wuxuu yahay niyada asalkeeda inuu u sameeyo Allah dartiis amalkan asalkiisa Allah inuu u sameeyo oo mesela inuu tukado rabo alluna u tukana laakiin cibaadadii isagoo ku dhex jira ayaa khiyaagi iyo isususkii ku soo diriyay oo gadaal uga yimaadeen oo mesela salaadu tukanay allu u tukanay kaligiisu ahaa dada soo galay meeshii xooga rukuucdii dheereeyo sujuudu dheereeyo waa qurxiyay qiraada dadku isagoo inuu si aad u tukanay u tusay oo isla dadku yeelay yaami salaada cibaadada noocaas ah labay u qaybsantay marka ugu horeeya oo qalbiga waxaas soo galaan inuu inkiro qof la shaydaana ku soo riday marka hore ilaahu tukanayay shaydaana yiri bal dadkana istus isla markiiba qalbigiisa waa inkiray waa iska difaac midda noocaas khilaaf ma leh waa ansaxa amalkiisa mar haduuba markii koowaad oo shaydaanku weeraray uu iska difaacay oo uusan istususkii sii socon niyadiisi asalka aheedana lagu abaal marina iyo difaaci qeyr kala tan kale waxay cibaadada asal al lagu sameeyay khiyaagi ayaa galay khiyaagina waa socda iskama difaacin qalbigii wali ku jira xoogaa dadka inuu istusayo allana waa u tukana ama waa sadaqo u bixina ama waa u jihaad ama waa u xajina xaj hal lagu yiraahdo isleeyahay soo xajina asalna allah soo xajiyo isla لكن حوغا حاج إن ليرانا مردن بير قلبي كسو غشو تاس أعماش الله بالله كلا قادا عمل وعمل أول كي عاقل كيس اسكو خيريه سيدا صلاة دوكالي صلاة ما دعي كرتو ركعة هور انت انصح له ركعة دم إني برتو وحا عفو نحن ربا ركعة هور انت برتو ركعة دم إني انصح له ما دعي كرتو ركعة هور انت انصح له تنتم نوى بوري كرتا مركز صلاة يورم ويسلب بوري مركز ويسلب بوري ما دعي كرتا مركا ركعات في صلاة أفر ركعة هطيه هيد إلا إذا هل ركعنا waa صحيح انت كان الواب برتا ما دعي كرتا بي ركعة لبات برتا تيور الواب برتا ميدا كدام إذا نواب بري كل ويسل بري قيب كميدو هدي برتا إذا نواب بري لكن إذا ذات واحد جرى عن أول كي آخر كسكو حرمين سيدا قرآن أخرين تا إيا الذكري إيا وحويان صدق بحنت قفكي بغل كونوا ربين الله بحوشان وبحشي وعدعدي او انصحدي شان كلو بخشي شان كلو بخ سغو كونتر مرسينيا استوسسku soo galay acmaasha marka sidaas quraanki oo kale asagoo dhowr juz aqrinaya loo yimid markaas dadka arkay markaas xoogaa istoosusku qalbiga ka gal adkaarti iyo dhikriga asagoo wada oo dhikrigi adkaarta aqrinayo boqol goor markuu subhanallahi yiri asagoo wada ay istoosusku soo gal acmaasha labadaas loo kala qaada أعماش أول كذا يعاقل كذا اسكو حيران يهين oo dhamaatay waa buri خلاص waa wada buri meel alla meeshu ka soo galay mar hadii suususkii markuu galay uu hogaanka u sii daayay أعماش aan awalka iyo aakhirka isku xirnayn sida sadaqadii iyo dhikrigii iyo quraan akhrintii oo kale intii hore waa u ansaxday inta dama ka buri sagoo kun sadaqayso kontonkii kale wada ay isuusku qalbiga soo galay kontonka dambe buri kontonkii hore waa u ansaxay sagoo juz akhriyay ayaa isuusku soo galay intii dambu akhriyay ka buri quraanka hore waa u ansaxay adkaartii qayb asoo akhriyay isuusku soo galay intii hore u sugnaan inta dambe ka buri wasaas واسدة هل مسألة
hadduu qofku camal saalixa ilaah u sameeyo kadibna ilaahay uu ammaan wanaagsan dadka u dhex dhigo oo quluubta mu'miniinta ilaahay ammaan wanaagsan u dhex dhigo taas waxba ka dhibimee waa fadli ilaahay waa fadli ilaahay asagina uu ku farxo fiiri camalkan allahu u sameeyey allah markuu u sameeyey oo alla dartiis u sameeyey ayaa waxa weyn dadkii ilaahay quluubtoodii ammaan wanaagsan u geliyay mu'miniinta ahaa waa ogaaday waa ku farx waxba taasoo ka dhibin taas waxba ka dhibin taasna waxaa tusaa xadiiska Abi Dar nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam عن الرجل يعمل العمل لله من الخير قف او عمل كو سمينيا الله درتيس يحمده الناس عليه او كدب ددكو كو امانيان كدبنا ددكيا كو امانا نبي قال له صلى الله عليه وسلم فقال النبي وغيري تلك عاجل بشرى المؤمن تاسو ومؤمن كبشارديسي سو دغدغتي وي مؤمنك بشارadiisi soo degdegtay way sidaas way taas way marka xadiiskaas imaam muslim saxiixiisa ku wariyay imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyay mas'alada labaad oo aan rabay waxay tahay inaan baraarujiyo hijrada xadiiskan sabab al-wurud ayaa muhaddisiinta gabalkood u sheegeen sabab al-wurud ayay u sheegeen oo waxay yiraahdeen waxa jiray nin gabar la sheekaystay Makka gabadhana Qays la dhigi jiray markii ay si kale isku afkarteen gabadhi waxay tiri ilaa aad soo hijrooto oo Madiina aad timaado anuu ku guursama dad guriga rabto Madiina imow soo hijro ninkii waa hijrooday مدينه تجسي قبل يقول كده وهلا مركز حديث كان نبغى يري يرهن كدمنا مهاجر ومقيس الله باش ننكي أرنتاس سيد حافظ ابن رجب يا حافظ ابن حجر العسقلاني يغير كود بأي تصريحيان وح سبب صحيحة إن حديث كاسو سيدا سكسو أروري الله ما هي الله ما هي وقاعدة جود لكن سنة صحيحة oo cadeynaya in sabab wuruudku sidaas yahay lama hayo laakiin hadduu dhixi lahaana xukunkaas soo gari lahaa xadiisku cadeeyay salada saddexaad oo xadiiska hore aan ugu laabayna waxay tahay hijrada oo Sheekh Maxamed Saalix al-Uthaymin rahimahullah oo xogaa yar oo qaacida ka bixiyay in ka soo hore u sharaxnay horaan u sharaxnay shalay oo waxaan niri hijrada وحال رضا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إن لغا سو غورو بلدك شركيغا iyo kufriga oo la soo aado beledka islaamka waxayna u qaybsantahay labo mid waajib ah oo qofka xaraan ay tahay meeshaas inuu jooga waa xaraan waa qof caasiya qofka halkaas jooga iyo mid sunnah oo aan waajib qofka aysan ku ahayn laba shardi hadii la helo inay waajib taan soo sheegno ijmaacna ay tahay labada shardi hadii la helo hadii labada shardi la waayana aysan waajib ku ahayn qofka ijmaacaadka aymada soo rarana waxaan ka tilmaanay xaafid ibn hajar waxaan rabaa xaafid ibn kathir kitaabka tafsiirka fi surati an-nisaa inda qawlihi ta'ala innal ladina tawaffahumul malaa'ikatu zalimi anfusihim laba shardi hadii la helo waa xaraam inuu wadan gaala jooga shardiga koowaad waxay tahay diintiisii inuu si khiyaar ah alla ugu caabudi karo waa shan di taas la waayo oo diintiisa si khiyaar ah uusan alla ugu caabudi karin waa shardiga labaadna waa inuu awoodo wadankan gaalada inuu ka tago wadan muslimta waa laba shardi di labada shardi la isla helo joogida uu jooga waa xaraam waajibna waxa ku ah hijrada diinkana waa diinta islaamka oo dhan ma aha salaada kaliya inaad tuka karto waa diinta islaamka oo dhan khiyaar inaad alla uga caabudi karto baadan salaadii waqtigeedii tuka karin ama aadan waqtigeedii saxda soomi karin
amaadan caruurtaadii si sharciya u tarbiyay karin oo gabdhahaagii xijaabkoodii iyo dharkoodii isan xorriyad u lahayn oo caruurtaadii gaal inta subaxdii u dhiibto aad galabtii ka sugaydo inuu keeno waa xaaraan joogidda aad joogtaa xaaraan qatcana wey biijmaaci muslimiin inaad joogtaa haddaadba awooddo inaad ka tagto haddaadan awoodin inaad ka tagto waa inaad markaa ku dadaasho sidaad uga tegi laheed ilaa qofku wuxuusan awoodin alla uma qabsado laakiin waa inaad u diyaar garowdo oo dariiq kastood awooddo ku raadido haddii labada shardi la waayo marka waa sunno inuu qofku ka soo jirado waddanka gaalada laakiin waajib kuma ah mas'ale kale uu sheekh maxamed saalix uthaymiin ku daray oo waa maxay waa mas'alada faasiqada waxaa ka qaalib noqday fisqi ama bidcu qaalib ka noqotay fisqigaasa daahira laba loo kala qaadaa yiri qofka hadduu diintiisii ku haysan karo meesha waa muslimiin dadka degan laakiin bidco iyo fisqiga qaalib noqday hadduu diintiisa haysan karo iyo sunnada waxaa waajib ku ah inuu joogo inuu ka hijrooda waa xaaraam maxaa yeelay inuu dadki islaaxiya la rabaa waxaa dhacda ilaahay qof inuu ku islaaxiyo qofkaasuna qof kale islaaxiyo sidaasaa dhacay laakiin hadduusan awoodin inuu diintiisa asaga haysto oo asagiyaa laga fitnayna tiisi oo uu ka cabsana naftiisa inuu fisqiga ama bidcadan raaco waajibay ku tahay markaas inuu ka tago laakiin isagoo awooda waa xaraan inuu ka taga beledkaas maadaama beledkii beled muslim guud ahaan yahay diintiisina uu haysan karo diinta haysigeed waxaa ka mid ah inuu qof u sheegi karo waxa weeyaan waajibay ku tahay sababtoo ah haddii meeshii fisqi iyo bidca ka jirtaba muslixiintu ka cararaan haddee xal see wax loo islaaxina maba jirto si wax loo islaaxiyo waxaa dhaboo la rabo in takyiirku ku yimaado waa in dadkaas fasahaaday ee fisqigu ku faafay ama bidcadu ku faaftay oo inxiraafay dadkaas in loogu yeero tawxiidkii iyo sunnadii iyo daacadii oo looga digo shirkigii iyo bidcadii iyo fisqigii ayaa waajib sidaasayna ku imaan karta wax badana cadowgu shaydaanku ku faafiya muslimiinta dhexdooda waxa weeyaan shirki iyo quraafo iyo bidac iyo daacad ka tag iyo inxilaal oo dhaqankii iyo akhlaaqda islaamka dhan laga tago ilaahay baa ku mahadsan laakiin alxamdulilah muslimiintu inay xoogaa baraarugeen oo ay dib u soo noolaanaydo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam tawxiidkii daacaadkii taas ayaa muuqata laakiin ibliisku ka daali maayo waxa weeyaan inuu shaqaynaa oo hadduu dadkan muddo ku dadaalay ee shirki iyo bidca iyo quraafa ku faafeen uuna arkay hadda nuuru iimaan nuuru nubuwe inuu shidmay nuuru nubuwe inuu shidmay oo sunnadii nabiga ha loo laabto shirkiga ha laga tago bidcada ha la iska daayo alla keligiis ha la caabudo dariiqii nabiga ha lagu caabudo arrintaasu shaydaan raalli garayme aad uga caroona makrina inuu u sameeyo dayma makriga uu u sameeyey waxaa ka mid ah siduu shiiku baraarujiyey sheekh maxamed saalix uthaymiin tanbiih aad u qiimo badan oo waa maxay dadkii muslixiinta ahaa ee tawxiidka iyo sunnada fahmay ayaga inuu isku sallido oo ayaga dhexdooda fasaadiyo oo ayaga uu isku diro oo ayagu kooxa iyo xisbiyaal iyo ururo kale tagay ay noqdaan isnacay waa dariiqada uu ku shaqaysa shaydaanku oo uu rabo nuuru nubuwaha shidmay inuu ku damiyo oo ku baqtiijiyo oo dib shirkigii iyo quraafadii iyo bidcadii iyo fisqigii iyo gaala raacnimadii u soo noolaato waa dariiqa uu rabo inuu isku diro dadkii muwaxidiinta ahaa muslixiinta ahaa ahlu sunnaha ahaa oo taxasub iyo kooxaysi iyo ururaysi uu ku sameeyo oo qofkii muwaxidka ahaa ee sunniga ahaa meeshii la rabay inuu ka fakero ka walwalo waxa weeyaan inuu islaaxiyo dadka naftiisa inta islaaxiyo dadkan qof islaax oo shirki uga dig qof kale islaaxiyo bidca uga ka reeb qof kale waxa weeyaan islaaxi inuu ku dadaalo oo uu meeshu dadka muslimiinu inay hagaagaan oo muslimiin badan islaaxaan oo ilaah raxmadiisu soo degto oo muslimku ciise yeesho oo cadowga alla duloobo بالعكس إنه أفكره أفر سجك أمر قاضته إنه هلا وعدوا إلى لعنة لعنة بيس عدوا إلى بجعلانة بجعلانة عدوا إلى جالسية جالسين
عدو يرى بدعين أفرتاس إنه كدور وأنا ما أنت مصيبة مسلمين تايستانا مدباس قفك إنه ضد إنه ولا شضه موحدك سنجة وهو كدور بضع أفرت اللي يرى إنه سلهل أفرتاس جبهداس عدو كوكعي كرو كوكعي oo markuu ila kacayda kaca hebel soo ma jeedid kaafir billahi alazim خلاص waa kaafir afartood haday wada leeyihiin asagoo u dhanta dhulko dhan gaal haday rabto ha qabsato bidca haday rabto ha qabsato fisqi haduu rabo ha qabsado inxiraafki dhaca hadda afartayda haday ii shiran yihiin oo jabhadaas ay yihiin ii diyaarsan qofkan ila gaal dhaha waa dhaha qofkan ila mubtadic dhahana waxay leeyihiin mubtadic way haduu yahay sunniga sunnada nabiga ugu gargaarka badan مبتدئ وي خلاص ورده خلاص واضح شوف هذا سأتابع وفاسق كير هذا وفاسق انتاس وكدر برا انه الله يرسله قرقال ويرش محمد صالح العثيمين وحيالها ايان ضررها وضعي وحا كميدو يري انا حاج كجوغا وحا الله يكينو لبا كوخو افريكان كانوا اقول ليتان حيلا وضد waxa weyn ajami ah fahamka diintu aad u liito marka inay qofka uu waxa weyn jabhadnimo kama basuulayay جهدني ما بكسولي كرو فهم كدينته واليتا أهل العلم يا صنادي ما كلا يقانين خلاص أفرت قفك وصهر مرا إسكالي أفريكان ويقول واحد اللي كانوا لبا كوحوضة أفريكان أو كوحوضة كلا قاليسين يدو ويلين كفارو كوا كلا نوحي لين كفار أيقا ما حيسكو قاليسين أيانوي وحيسكو قاليسين أيان مسألة إلا يسوق رافايدي كرتو مسألة فرعية ويو أو فضوط أو وحوين اجتهادكو كعنمو وامع متغان مركي صلاة اللو استاغو الله أكبر مركي اللي رقعمه وإن هالكان للسارة ما يو إنساس الله الله دي بسلا داس اسكوا يستانو مالكية دا مكت أفريكا دا نكبه وقعمها الله دينا إن كستو السنة هالكان إلا صار فيري مركي الدليل هان الله بتا مسألة دا هالكان إلا صار السنة مركي قفكو تاريخ فاتحة دي قنادي أخرى إلا الله دي ما مركي فاتحة أقنين هذا روى مسألة فقه هذه السلف صحيح اسكو خلافين فيري وهو يري كوحا كوح قاليسين هذا waxay leedahay waa kaafirad nabigu halkaas la saaro yiri waa diideen waa la laadiyeen nabiguna wuxuu yiri man raqiba an sunnati falaysa minni hata fiiri meesha u saareen sunnadaas ay neceb yihiin maadaama ay sunnadaas neceb yihiin waa kufaar halkaas ay ka dhalaaliyeen markaasay bari aan ka nahay marka taasna waxa keenay fahamka faasidka ayaa keenay ala kulli xaal qof walbaaba waa inuu ogaado adoo isagoo kaligiis oo qaawan oo cagacad ilaahay hortiisa in la soo taagi doono oo wax jabhadu la socon taas waa inuu qofku ogaado taas waa inaad ogaato kaliga ado la shiiqaagu ku jawaabina wala saaxiibkaana ku jawaabina wala ninkii jabhadnimada ku abaabulay ku yiri ku kaxibelna ku abaab kulama socdo kaliga ado oo qaawan oo cagacad ولقيتنا سيدا ويري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى مجلد كافر يطبنات صفحة أفر بقول سديتا يصدح هذا أدو قيمة بضان هذا الدار أدو قيمة بضان أي آخر كوحو كيري فما أحسن ما قال بعض السلف الله محاكا وناك بضان هذا الكسلف كقبل كميده يري هذين الله وناك سنة هذا الكاس أمحوية ويري ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين ولي مدعين إلهي أمر إنه أمره إلا شيطان كل بقى اعتراضه كسمية أمر كستأو إلهي أمره الله بولي شيطان كل بقى اعتراض أيو كسمية لا يبالي بأيهما ظفر الله بلاس مدو كقولي استنى شيطان كو آبي لما واسكو قمي محايلة لوضو هو الضلال السجنة تنتيس وقف كانوا إنه انتبادي يوبا النار تقلب تنتيس وين تعطي adiga sideed wadada ku baadiyoobayda ma kala jecla soo kaliya dantiisu waxay tahay qofkaanu habaadiyooba naara galo habaadiyoodo oo naara galo ma kala jeclu maxay yihiin labadaas quluwun aw taqsiir wa quluwi ama taqsiir qofku inuu xaqi hore uga gudbo sidoo suleeyo u dadaal oo yiraahdo qof aan ilaahay galaysin waa kaafir murtad hada ilaahay ma galaysin rasuulku ma galaysin sallallahu alayhi wasallam wa quluwi أما سكي الله يا رسول قال يسير إنه يرهدو ما قال ما وكي الله يا رسول قال يسير قفن الله يا رسول قال يسين إنه قال يسيرو إيه إنه تكرر دلوه وضلا سو ما تشيد
كي الله يا رسول بمبتدع كدغين يا ايد بدعولها اها لكن ان قال لما جارسيسين هدا ترى وا قال وقلو مبتدع ايضا الله يا رسول كو حكميين هدا ترى وا سنن وتقصير مساله ولدا ميزان له شيطان كنا لبدا طريق مدو كاغا غوريست دان كمال لبدوداس مدو كاغا انو كاغا غوريست اسغا ودان labadaas in mid kaaga guulaysto soo ma jeedin marka waa inuu dadka mu'miniinta ah aysan noqon xisbu shaydaan ayagoo isku haysta inay xisbullah yihiin ayagoo isku haysta inay ansaaru sunna yihiin ayagoo isku haysta inay yihiin ansaarullah dad Allah u gargaaraya waa inaadan noqon ansaar ash-shaydaan waa inaadan noqon oo markasta quluwi iyo taqsiirka iska ilaalida waxaana quluwi iyo taqsiirkaas kamida midan sheekhu sheeg oo takfiirka iyo tabdiica inaad quluwi ku sameeydo ya oo qofkii bari'a ka ahaa ee waliba min khawaas ahli sunna kuwa ugu qaasan inaad tiraahdo mubtadi'a ama se waxa weyn mubtadi'a la yaqaano daahir ah aad tiraahdo ma yahay kala tuurin dadka waxaan dadkan muslim way haga kala taaban oo walahi iyo barihi oo dhan daaqada ka saar marka waa dalaal ilaahay weynaan ka mangalayna